It could have been rogue killers. Who knows? Remember, an early Trump thing is, he had ties to terrorism, that he was working with ISIS and Muslim Brotherhood, and was friends with bin Laden. And sababta Mareykanka uu tirtiray cadeymaha dilka Khashoggi ayaa lagu sheegay in dhaqaale xoogan uu Sacuudiga hub iyo saanado military kaga iibsado Mareykanka, taas oo maaliyad ahaan lagu qiyaasay 450 bilyan ee dollarka Mareykanka, sida uu Donald Trump madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka uu sheegay. laakiin haddii ay iyagu soo bandhigaan cadeymaha dilkiisa ayaa lagu aaneynayaa inuu xiriirka Sacuudiga iyo Mareykanka uu go'ayo, dabeetana dakhligaasi Mareykanka uu ka helayay dalkan qaniga ah ay ka faa'iideysan doonaan Ruushka iyo Shiinaha. maamulkii Trump waxa uu xiriir hoosaad la lahaa amiirka imika ah dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga. Barack Obama ayaa sidoo kale hubka iibin jiray boqortooyada Sacuudiga iyo sidoo kale George Bush madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka, isaguna waxa uu xiriir dhow ee adag u la lahaa boqortooyada Sacuudiga. laakiin Joe Biden madaxweynaha imika ee dalka Mareykanka ayaa sheegay inay dib u baari doonaan kiiska dilka wariye JAMAAL KHASHOGGI kadib doorashadiisii uu kaga adkaaday Donald Trump. dhaxal sugaha Sacuudiga ayaa dhowr jeer ku khudbeeyay in Yurubta cusub ee bariga dhexe ay noqonayso Sacuudiga. Fogal ayaa sheegay in JAMAAL KHASHOGGI uu baadigoobayay la xisaabtanka iyo cadaaladda xukunka kalitaliska ee Sacuudiga.